sida caadiga idaacadda BBC-da qaybteeda laanta afka Soomaaliga ayaa qabata doodo maalmaha Jimcaha taasi oo ay kaga hadasho xaaladaha la xidhiidha Soomaalida hadba arrimaha taagan ee ay laantu soo qaban qaabiso. Shantii bishan koowaad oo ahayd maalin Jimcaha waxa ay dood wadaag ku soo qaadatay heshiiskii afgarad ee kowdii bishan Addis Ababa ku dhaxmaray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kaasi oo dhigay in Itoobiya hesho 20 kilomitir oo isku wareega oo bada iyo saldhigga ciidamada badda ee Itoobiya halka Itoobiyana ay Somaliland aqoonsan doonto arrintaasi oo dawladda Soomaaliyana ay ka hortimi waa arrintii ay ku saabsanayd dooda ay soo qaban qaabisay Jimcihii dhawaa idaacadda BBC-da qaybteeda afka Soomaaliga. Haddaba doodani oo socotay waqtiga ku dhawaad saacada waxaa labada dal ee Somaliland iyo Soomaaliya uga qayb galay wasiirada wasaaradaha warfaafinta ee labada dhinac Mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland iyo Daawud Aweys oo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya waxaana ku wehelinayay Dr. Axmed Cali Khayre oo ay idaacadda BBC-du ku sheegtay sharciyaqaan bartay qaanuunka kana haysta shahaadada PhD-da oo isna sidoo kale ay Aweys ku wada sugnaayeen magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya. Intaasi kadib waxaa si toos ah loo guda galay bilowgii dooda iyadoo uu wariyuhu ku bilaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland oo weydiiyay falcelintii ka dhalatay heshiiskaasi taasi oo Mudane Cali Mareexaan tilmaamay in dawladda Somaliland ay si dhow ula socotay dhammaanba falcelimihii kala duwanaa ee dawladihii arrintaasi ka hadlay waxaana wasiirka warfaafinta Somaliland sheegay in dhammaanba dalalkii ka hadlay arrintaasi ay si weyn u soo dhaweeyeen arrinta heshiiska Somaliland taasi oo Mudane Cali Mareexaan wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland uu tilmaamay in dawladda Somaliland ay si dhow ula socotay dhammaanba falcelimihii kala duwanaa ee dawladuhaasi arrintaasi ay kaga hadleen waxaana wasiirka warfaafinta Somaliland sheegay in dhammaanba dalalkii ka hadlay ay si weyn u soo dhaweeyeen arrinta heshiiskaasi Somaliland oo ay ahayd arrintaasi marka horeba arrin ay Somaliland filaysay maadaama oo dalka Itoobiya uu aqoonsaday Somaliland. Intaasi kadib waxaa mikrofoonka la hordhigay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Daawud Aweys waxaanu ku tiraabay in dhammaanba dawladihii ka hadlay ay sheegeen in la ilaaliyo qawaaniinta dalka Soomaaliya taasi oo ula jeeday in aanay cidna ogolayn heshiiskaasi waxaanu intaasi ku daray in hadalkii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi jeediyay kadib markii uu ku soo laabtay dalka Somaliland oo ahaa in Soomaaliya ay ka xuntahay horumarka Somaliland waxa uu Aweys sheegay in uu hadalkaasi ahaa mid qalada maadaama uu heshiiskan loo baahnaa in lala galo maamulka Soomaaliya. Hadalkaasina waxa uu markhaati cad u noqday hadalkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ee ahaa in Soomaaliya ay ka xuntahay horumarka Somaliland maadaama uu hadalka Aweys ka muuqanayay isku hor imaad iyo habqan dhinaca xog la'aanta waxaanu si habqan ugu tiraabay isaga oo baalmaray khudbadii uu Xasan Sheekh Soomaaliya arrinta heshiiskaasi kaga hadlay ee uu yiri haddii heshiiska la gelayo waxay ahayd in wadadeeda loo maro hadalka Xasan Sheekh oo dulucdiisu ahayd in aanay diidanayn heshiiska balse ay doonayaan in maamulka Soomaaliya lala galo waxaana wasiir Daawud Aweys uu intaasi ku daray in aanu jirin wax faa'iido ah oo uu heshiiskani Soomaaliya u leeyahay iyo guud ahaanba bulshada Soomaalida taasi oo halmaamay in madaxweynihii ka horeeyay Xasan Sheekh waqtigan madaxweynaha ka dawladda Soomaaliya oo ahaa Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inuu dawladda Itoobiya uu kula heshiiyay ilaa 4 dekedood oo uu ballan qaaday in uu siin doono amaba ka kirayn doono dawladda Soomaaliya inuu ka kirayn doono dawladda Itoobiya halkaasina waxaa ka muuqanaysay in aanu wariyihii dooda xidhiidhinayay amaba doodaasi qaybinayay in aanu waxba ka weydiinin isbarbardhigga labadan dawladood waxa ay ku kala duwan yihiin maadaama oo dawladda Soomaaliya ay aaminsan tahay inay ku qurux badnayd oo kaliya in iyadu ay bixiso dekadaha Soomaalida. Axmed Cali Khayre oo idaacadda BBC-du markii hore ay ku sheegtay
khabiir dhinaca qaanuunka ayaa si indhala-aana waxa uu la saftay wasiir aweyska Soomaaliya doodaasi ku matalayay maadaama oo ninkan khabiirka sheeganayay uu iska indhatiray in xuduudihii 60kii ay Somaliland kow ka ahayd isla markaasina Somaliland ahayd dalkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee qaata xornimada iyo madax banaanidii 60kii inkasta oo wariyaha doodaasi qaybinayay ay ka muuqanaysay aqoon dhanka saxaafadda iyo dhexdhexaadnimada dhinaca daadihinta dooda haddana waxaa xulashadiisa ka muuqanaysay in uu khabiir uu ku sheegay in uu aqoon durugsan u leeyahay qawaaniinta shuruucda caalamiga kaasi oo markiisii horeba ka soo jeeday dawladda iyo maamulka Soomaaliya dadka qaar ayaa tilmaamaya in sharci ahaan labada dhinac ee doodu dhexmartay in looga dhigi lahaa sharci yaqaan shakhsi aan labada dhinac midna la xiriirin oo aan matalin dhinaca kalena wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland oo la tilmaamayay in uu door weyn ka ciyaaray doodaasi ayaa carabka ku adkeeyay sida ay u wada safan yihiin Daawud Aweys iyo khabiir ku sheegay doodiisu marin habaabsanayd waxaanu wasiirka warfaafinta Somaliland mudane Cali Marreexaan uu ku tilmaamay ninkaasi advocate oo macnaheedu yahay qareen u doodaya dawladda Soomaaliya oo aan ahayn khabiir dhinaca qawaaniinta caalamiga aqoon u leh doodaha noocan oo kala ay bulshada qaybaheeda kala duwan waxa ay tilmaamayeen isla markaasina ay hafarta ku fiiqayeen in ay qurux badnaan lahayd khabiirada marka la soo qaadanayo in ay noqdaan kuwo dhex u noqon kara maadaama oo ay foolxumo weyn ka muuqanaysay doodan maadaama oo wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland ay guud ahaanba labadii dhinac noqdeen dhinac kaliya oo ahaa khabiir ku sheegaasi iyo wasiir aweyska warfaafinta ee dawladda Soomaaliya